السلام عليكم guys. talo ku socota hooyooyinka Soomaaliyeed ee guriyaha fadhiya jecel inay 7 days fadhiyaan. Yes, fadhi. laakiin waxa la socotaan money gabdho. Money hooyooyin inuu ku dhacay stress, depression uu ku dhacay, isolation say guriga ugu xirnaayeen, too depressed has because waxa waaye being isolated, sitting at home 7 days a week, not going out, eating. Yeah. It's not good for your health. Absolutely not good for your health. But coming out once, a day, having a fresh air, bring your kids out, breathing that beautiful air. banaanka hawada macaan oo Ilaahayna siiyay, nimcooyinka Ilaahay ay kamid tahay, hawooyinka aad u macaan in loo soo baxo adigoo oo cabaya hawadaas macaan. air geedaha erka adigoo appreciate gareynaya, adigoo Ilaahay ugu bacda celinaya nimcooyinkiisa. waxaan arkay gabdho badan oo Soomaaliyeed oo guryaha jooga 7 beriba 7 days a week, wax kale ma qabtaan, guriga joogaan, intay cunayaan. hal cunug markay dhalaan wallaahi oo bilaahi ayay fuusta gobolo noqonayaan. fuusta gobolo waxaa waaye gurigu waa u fiican yahay, gabadhana gurigeeda u fiican, but laakiin waliba qurbaha aanu joogno dadka hadda Mareykan oo kaleeto, waxaan la shaqeeyaa hay'ad anigu waan mas'uul ka ahay oo la shaqeysa faamilada. inta taqaan intaan aqoonin waxa la yiraahdaa umma project. hooyooyin badan baan la shaqeynaa. waxyaalaha ugu badan oo dhibka ah oo maamooyinka Soomaaliyeed ama gabdhaha Soomaaliyeed ama dumarka Soomaalida haysta waxa waaye islaxado buuq. gurigee fadhidaa waa isla buuqday, noloshii waxa waaye darbaabo badan baa u muuqday, 8-9 ciyaal guri loogu soo xiray, depression ku wada dhacay, way isla wada buuqeen, way wada qafiifeen. markaasaa kabahooda ka carray kabahooda. It's not funny but it's an issue jira loona baahan yahay wax laga qabto. haddii marka hal iyo laba aan ka taabto waxyaalaha aadka u anfacaya waxaa waaye hooyo haddaa tahay waqti muhiim waaye inaad naftaada siiso. salaada horta waa muhiim oo qofka waxa waaye inuu Ilaahay keligiis uu la fariisto oo uu salaadii u tukado, khilaaweeyo, qalbigiisa wareysto, niyadiisa dejiyo. salaada waxyaalaha niyada dejiya ay kamid tahay, waa muhiim. waxyaalaha kale oo muhiimka waxa waaye hawada Ilaahay ku siiyay, yarta iyo quruxda Ilaahay ku siiyay inaad u soo baxdo waqtiyadaada kamid ah maalintii siiso, aad lugayso, ku cimro qaadato, qalbiga ku degsato, hawo macaan qaadato, ka soo dhex baxdo buuqa iyo guriga cilada ku jirta cuntada cunaysid, ka soo dhex baxdo adiga oo xisaabinaya naftaada, ka fakaraya xaalkaaga, waxaa ku sugan tahay noloshaada, maxaa kaa qaldan, maxaa u baahan saxitaan, la xisaabtamaya naftaada. niyadaada khayrka u sheegaya, nimcooyinka Ilaahay ku siiyay tirinaya oo cabiraya oo qalbigaaga ku dejinaya. That is what you need. You don't need 7 days a week inaad YouTube fiirsato, inaad la sheekaysato gabdho iyaguba wareersan oo waxay kugu saa'ideynayaan aan jirin. ma fahanti? marka timekaas quruxda badan ee aad naftaada la sheekaysanaysid, ee aad maxay ahayd Ilaahay aad u dan sheeganaysid, buuq aad ka soo dhex baxaysid, nimcooyinka Alla uu ku siiyay aad ugu xamdinaqaysid ayaa muhiim ah. waxyaalaha u baahan in gabdhuhu ay sameeyaan. arrinta kale oo iyaduna aadka muhiimku ah una fiican gabdhaha inay niyadooda ku dejiyaan
ألا بذكر الله تطمئن القلوب ذكر إلهي أي وحا ودجياه قلبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم marka aad lugeynayso oo aad dirtaas ilaahay aad hoos marayso oo cirka quruxda badan aad fiirinayso oo dhulka quruxda badan iyo geedaha iyo dhirta iyo nimcooyinka ilaahay aad ku cimro qaadanayso ayaad waxaad ku daraysaa subhanallahi alazim subhanallahi wabihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wabihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wabihamdi waana muhiim in aad tiraahdo sababtoo ah waxyaalaha qalbiga dajiya ayay kamid yihiin ilaahay wuxuu ku yiri markaad ugu soo ordo aniguna u soo dhawaanayaan midda ugu dambaysa iyaduna muhiimka ah waxa waaye jidka markaad marayso dugeynayso oo ilaahay nimcooyinkiisa quruxda badan aad ku cimro qaadanayso oo aad ilaahay aad maxay ahayd ku xusayso aad ku weyneynayso oo cadamada ilaahay aad ku sheegayso oo leedahay subhanallahi alazim subhanallahi wabihamdi inaad ayadana aad ku darsato waqtiyaas waqti kamid ah inaad quraanka ilaahay akhriso walow aaya hal aayadna ha noqoto inaad akhriso suuratu alxamdulillah xataa inaad akhriso la akhri qul a'uudu binaas akhri هذا كنت gacanta ku wadan akhri telefonka dhagaha gasho dhagayso culimada akhrinayso waxyaalaha qalbiga dajiya ayay kamid yihiin waa arinta ayadana talada ah in halkan kala wadaagayo gabdhaha walaalahay ah ee Soomaaliyeed ee muslimiinta ah khaasatan gabdhaha qurbaha ku nool